حي على الفلاح. tijaabiso inaad wax qaybi karto wax xifdii karto wax baran karto waa waxa aad u fudud Bukhari hadii la qali lahaa maskaxinteeda leeguma ku jirtay kaba badnay kuwa kale casrigiina dhaafay qarnigiina dhaafay saynisyahankii dunida ugu weynaa ay yiraahdaan waa saynisyahankii soo mara qarnigii 20aad waa Albert Einstein waa cilmiga physics-ka nimankii ku takhasusay waa ninkii aragtidiisa ay ka soo burqatay nuclear weapon kan la sheegay iyo fikradahan TV-yadan iyo waxa soo dhamay nadariyaad physics u leeyahay ka soo burqadeen waxa ay yiraahdaan waa aqligii ugu weynaaba iyagu markay wax qiimaysanayaan aqliga deentoodu bay yaqaaneen waxay yiraahdaan markay intoodii isku dardareen waa aqligii ugu weynaa ee qarnigii 20aad dunida soo maray bay yiraahdeen sadaradeed bay waxay yiraahdeen ninkan yeeynana aasine balaan eegna maskaxdiisa waxa ku jira Einstein markuu dhintay baa la qalay iyadoo la rabo bal in la ogaado meesha tan waxa ninkan ku jiray غير caadiga ah waxay yiraahdeen Einstein maxaa loogu tagaad malaynaysa qof bina aadam aqliga baa loogu tagay bay yiraahdeen wax ka badan oo ku jiray maskaxdii Einstein laga ma soo helin laakiin muxuu ku gadisnaa waxay yiraahdeen wuxuu rumaysnaa inuu ka shaqaysiyo oo adeegsado idan Bukhari wuxuu rumaysnaa inuu maskaxdiisu ay u tahay maktabad Imam Ahmad wuxuu rumaysnaa wuxuu xifdiyay inay maktabadiisa yihiin Abu Zar'a wuxuu rumaysnaa maktabadiisu wuxuu qaybay inay tahay Shaafici saasuu rumaysnaa a'immadii hore saasuu ninku cilmigiisa laabtiisu ku sitay kumaankumka kitaabaynu sheegayno Imam Tabari baardadiisa wuxuu leeyahay aan idin yeedhiyo tafsiir ee qorta himmada yaraatay buu yiraahday imka waxba 3 majladood buu yeedhiyay tafsiir 3 majladood uu yeedhinaya waxaanu leeyahay himmada yaraatay ma yaraantum baa lagu bilaabaa maya بعض العلماء ba waxay qoreen kitaab la yiraahdo man hafida al-Qur'an ba'da al-40 buu qoray afartan jir ragii dhaafay quraanka qaybay oo maxaad quraan sheegaysaa azhar aimadeedii nin kamid ahaa konton iyo afar jir buu ku bilaabay wax qorista waa imaam al-akbar lil azhar laakiin konton iyo afar suu magaalada isaga joogay markuu afar iyo konton jir marayay ayuu dhigay nimaad wax baratid horta waqti badan baaba ka lumaya waa bilaaba azhar buu soo galay dabeetana waa soo waday waa soo takharrujay imaam al-azhar isagoo ah buu dhintay 90 jir daadiisu marayso 94 sanadood meelaha san filayeen ku dhintay 90 magaalada laakiin wuxuu dhintay isagoo imaam azhar ah yani wuxuu aaminsanaa awoodiyo taaqada ku jirta inay wax kasta qaban karta ayuu aaminsanaa